مدكيدنتي ماهلي نيما دنيا لين مديغو مدكيدنتي ماهلي دالي الدرحم موي دايما دالي تيدي دالي الدرحم موي دايما دالي تيدي دالي الدرحم موي دايما دالي تيدي كجيروي داودي سداهرته من الدرانو دي كجيروي داودي سداهرته آتو دايو دابو مرايو إسدادا يبانهاي آتو دايو دابو مرايو إسدادا يبانهاي آتو دايو دابو مرايو إسدادا يبانهاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانكم xiriirayaasha daawadayaasha dhageystayaasha saad qiyaanka TV soo dhawaada meel kastood ku sugan tihiin iyo waqti kastood joogtaanba insha Allah idinku nabad yeelo dhammaan Soomaali weyn meel kastay joogto iyo waqti kastay ku sugan toobada Nabi Maxamed calayhi afdal salaatu wasalaam iyo dhammaan Soomaali galbeed siiba galbeedka gobolka City oo aad iyo aad u salaamayno dhammaantoodna aan leenahay dadka intii naga baxday Allah u naxariisto naxariisana Allah siiyo shuhada fi jannatul firdaws intay ka baxeen Ilaahay sabran kaamina wa iimaana saadiqan hasiyo intii naga dhaawacantayna Allah noo bogadhayo aamin aamin sidoo kale halka loo mudana oo qaali ah oo dhammaantiin taqaanaan iyaan ku soo dhaweynaynaa barnaamijkaygan taxanaha ah ee caawa ugu dambeeya hadduu Ilaahay yiraahdo qaybtiisii saddexaad soo dhawaada idilaahay idinkuna sidoo kale waxaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mudana Yaxya aadan iyo mudana Faarax Ute mudana Yaxya aadan soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه آد بعض ما تسنتي سعاد أنا كوكو سلامة تحية من الإسلام إن شاء الله تعالى ولكن فرح وتنا هذه آد بنو سلامة وسجن أيوة قاليا وحن سلامة يا مركل بعدنا كنت حنا ياشا تريانجل تي في ويسوون مارتي قيم اللي بحكي قاطع هرو مركب بالشدة يوعي قرين تدبا مركز صدحاتنا وحن لاهي soomaalida oo dhanna waxaan u diraynaa baaq oon leenahay soomaalidu waxaan noolaato insha Allah taala iyo dadka muslimiinta oo dhanba mudana Faarax soo dhawow وعندنا سعاد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا دمان كنت حنياشا تريانجل تي في او برتا لغا وعي قليو ومدى انكسو جنو سعادة هذه سيجارة يقول سلام يا والكي يحيى حوش وندوهي وأنا ما سنتين. هذه مدن لبدين واد ما سنتهين سيدا وناكسن باقا وقصو جوابتين تعيشين إن البرنامج كان بيسترتان عاودو إلى هيدا إن برنامج كنا نيتان الأوغدا قالين إن سيتي أو أوغول ديغانيسا أما بس أوغر ديغانيسا إن صومالي وين إن وحان هورتا قالينا بل أرين سو غاري أو جديد arrinkaas oo horay maalmaha u socday laakiin sida
si adkaanaysa xaaladdu arrinkaasi oo ah labadan degmood la leeyahay waa loo ansixiyey dadkii barakaca ahaa labadan degmood baa marka hore doonayna inaan sii kor taagno maxay yihiin labadan degmood halkay ku yaalaan sidee waxbaa loogu bedelay dadkii dhulkoogii baa yaa lagu iibsaday oo loogu bedelay tan bal inaad halkaa wax yar tafaasiil yar naga siisaan intaana sii gudagelin barnaamijka intiisa hadhay mudane yaxle kusoo dhawow maxay yihiin labadan degmood ee hadda la isku hayo ee la leeyahay waa loo ansixiyey dadkii barakaca ahaa aanan garanaynina meelay ku yaalaan cid iska leh ina lagu bedelay dhulkoogii bal wax yar tafaasiil baan u baahanay mar labaad waad mahadsantahay sucaaday dadweynaha na daawanayana waxaan leenahay marka labaad waxaan inaan ka wargelina ah oon u sheegno labada degmo ee la sheegayo labada meelood baa imika la odhan karayaa laba degmo maaha waa laba meelood oo ay maaragtay u kala yaala dayn iyo dhuunyar weeyaan dayn iyo dhuunyar kolka laga hadlana dee macno ballaadhan bay leedahay waa laba gobol oo aad u waaweyn weeyaan marka labada meelood halkaas ayaabay ku yaaliin dayn oo maaragtay raacsan xagga afdam oo qaraf iyo agagaarkeega weeyaan oo magaalada Garbaciis hoos timaada iyo meeshan kale iyaduna cali dheera la leeyahay oo dhanka iyo raacsan magaalada Candhuuf iyo dhinaca Cadayti oo dhuunyar ah marka degmooyinkaasi waa dhul maaragtay la yaqaano waa dhul xoolo daaqdi ah waa dhul maaragtay de dhuka caloosha maaragtay reer ku degana kamid ah marka waxaan la maraan habaabintan la wada ee ummadda lagu mashquulinayna waa tu imaka maaragtay soo biirtay wax jiidana maaha nin haddaad inaad iska jeediso doonaysid isaga la isku jebiyaa taan baan u arkaynaa waana siyaasad laakiin waxaan u maleeyaa dadku imaka inay kan waantoobeen wax hore soo maray baa jiray haddii tan ay kan waantoobi waayeenna dee sida la raba unbay wax ugu dhici doonaan kuwa wax raba si wanaagsan mudane faarax cute seebaad u aragtaa labada degmood iyaa deganaa asalkeedii waxaan dadku u haystaanba marka ay maqlayaan degmooyinkan amaba tan labadan meelood sida usoo yidhiba mudane yaxye in ay dhul laba degaanaba ay ahaydba ama dad kale iska lahaayeenba oo beeshani lahayn oo hadda wax jadiid ay laga dhigayo bal horta tafaasiil baan u baahannahayba dadkii degi jiray meeshan haddii baa la degi jirin oo ay tahay dhul imika la meelaynayo dadka la doonayo la dejiyo oo dhulkoogii lagu ilowsiiyo bal isheer kortaag aduguna waxaa tafaasiil laga helsiin horta shacaaday siduu yaxay uu soo sheegay degmooyin la yidhaahdo dhuuyar iyo dayn ma jirto dhuuyar iyo dayn waa gobollo dadka caqliga ay ku dheelayaan ummaddan dhibaataysan ee ay maanta ka jiifto yaa lagu sii dheelayaa yacni waa ciyaar weeye dhuuyar iyo dayn waa gobollo ka waaweyn inta lagu sheegi kara deed matalan dhulkaan imika haddaan dhulkaan soomaalida liibaan gobolka la dhaabay dhuuyar iyo dayn way ka wen yihiin meeshaasi haddii la yidhaahdo iyaa degi jiray horta waa dhulkii caloosha ciso waa xoolo daaq waa dhul baadiyaa wey dadkani waa dadka loo magaalaynayo dhulkan magaalooyinkii ay deganaayeen laga soo barakiciyey yacni caqligu inuu diido ummadna suyaxa sheegayna iyadoo la isku diro iyadoo la isku jahawareeriyo oo loo diido ummaddaasi inay abaabul samayso oo loo diido ummaddaasi inay dhulkaygii soo dhacsato weeyaan waxan waqti la joogo qaar baa la leeyahay dhuuyar iyo dayn waa la sad bursi baa la sameeyaa la leeyahay halka alaabtu ka soo jeeda waa halka sad bursi oo reeraa laga qadiyey maxaa laga qadiyey ninka laga qadiyey muxuu yahay meesha la leeyahay cali dheer ama oo cilo caba waa shiraaci dad geedo hoos fadhiya iyaa la leeyahay maalnaku caqliga ciisuhu intuu leeyahay maanta yacni tan in la diiday ahayd tan inay imato maahin siyaasiga taa la yimidana horta jiritaanka ummadda siyaasi shaqo kuma laha anigu waxaan maanta xilka dhabarka u saarayaa arrinkaa inuu arrinkaasi heerkaa loo tago dadka ciisaha mansabka ciisaha dadka ilaaliya siyaasigu waa nin kursigiisa ilaaliya waa nin danihiisa ilaalsada wax alaali wuxuu doonu samaysa u dantiisa u gaaro laakiin ummadda aan mansab lahayn oo siyaasadeed aan lahayn
oo ilaalinaysa wax ku ajiritaanka dadkani inay taa diidaan bay ahayd in maanta in la dhex dhigo weel maran in dadka la dhex dhigo oo ay ku qamaamaan ila dad baahane oo la yiraahdo halka reebel baa ku qaday waa ceeb weeyin aqliga ummadda bulshadan waa ummad lagu dheelaayo dhibaataysan waana dheel weyn waa ciyaar weyn ma aha magaalo meeshan haddii magaalo la magaaleynayo dhul haddii la magaaleynayo waxaaba lagu leeyahay taasi fariinta ay dirayso waxa tahay dhulkii laynaga qabsadeed shurqoolka lagula wareegay waxaan u qabaa inuu cali keligii la wareegin dhulkii shurqoolka lagula wareegay iska ilaawa halkan iyaa la dhisayo halkan baad degaysiin halkan iyaad degaysiin dhul calanku ka taagnaa baa jira calanka dowlad deegaanka soomaalidu ka taagnaa oo iyaku sameeyeen baa jirtay dad dhulkii ay sameeyeen halkii ay gacantooda ku saaheen halkii ay ka xoreyn lahaayeen waxay leeyihiin magaalooyin baan nii dhisaynaa dhulkii iska ilaawa waa qalad weyn taas taa in la aqbala maahayn aad baan uga xumay dadkeenu inay ilaa maanta halkaa cagta hoosteeda ummad ay quursanayso dowladda Ethiopia ay quursanayso kuwii iyaku xakumay oo wax isla lahayna kuwan baa aniga ka daran quursiga kuwan ay u qaadayaan kursiley iyo kufidleyda si wanaagsan mudane Yaxya waxa weeyaan dowlad deegaanka Soomaalida iyay ka soo baxaysaa arrinkaasi labadan meelood inay u magacaabaan maanta markaas saddex shayba way noo taala inaga saddexdaas shay dadku inay nala fahmaan dadkan la leeyahay dhulkan hal layni siiyo ee magaalaystana waa inay fahmaan arrinkani baaq aad halkan ka diraysaan wuxuu yahay ma la isku mashquuliyaba dadkani oo kuwii wixii laga qaatay yaanay ogaanin oo waxa la rabaa bedel dadkan ma waxa la rabaa in la isku diro dadka intooda badan waxay leeyihiin la isku diraa la rabaa marka dowlad deegaanka Soomaalidu maxay ka faa'iideysaa shacbiga inta hadhay inay isku dirto dhul aanan jirin inta u magacaawdo dhulkiina soo gacmaha lagu hayn durba la yiraahdo kuwaasa inta la siinay dadkuna maskaxdoodii ay gaabato ay dhexdooda isku qabtaan arrimahaas waa sidaad ka soo dhawaajay Sucaaday horta waxa jira dhowr xaalo oo ninka siyaasiga uu maaragtay oo marxaladoodu soo maraa jira marxaladdan imanka aan taabsanayna ee maaragtay inaan ujeedada aan kale ay tahay waxa weeye maadaama dowladdan Ethiopia amba dee waddankii Ethiopia uu khalkhal ku jiro oo hadda jeer laga dhawaajinayay dowlad deegaanka Soomaaliduna waa nabad waa dhaydhay beer baan qolxad ku cunaa dhulka iyagu waa nabad la lahaa waxyaalaha lagu dadayay ee runta ina maaragtay laga saaro mara dayax sidii maaragtay ina mara lagu qabeeyo oo amba mara la dul dhigo ayaa la isku dayayaa marka arrinkan imanka maanta aan ka hadlaynay halkan u fadhinaay cagjarun kama soo baxayo laakiin waxyaalo kale oo siyaasad kale oo ka sarreysa jirta oo dadkana garanaysa nuxurkiisa garanaysa xamaasadda ku jirtana garanaysa kana soo shaqeeyay oo maaragtay waqti dheerna waxaan soo socday waxa aan soo ognahay imanka inay luku leedahay dowlad deegaanka Soomaalidu inuu luku leeyahay laakiinse dowlad deegaankii Soomaalida maanta isagoo ku joogaa inta adu wax u maleegaysid maleegani adu aad sameynaysid ba adigana wax lagu maleegay marka waxaan ogeyn dheer dhaweyd inay qoladii ugu badnayd ba magaalada maaragtay Jigjiga ee Jidwaaq inay hadlaysay ay dadka shir ugu baaday meel qayb waxay ka dhigan tahay taasi waxyaalaha maaragtay cawaaqib xumadu ay ka dhalatay ee siyaasad xumada ah ee ummadii maaragtay Soomaalida ahaydna wixii lagu maroojiyay يعني أي مكان كان يمكن حكى هذا لنا وقبل كشيء تبى المروجية وما لنا أو تدير دبته وجوين أي كم مقطمات ما أنت لكن دولة ديجان كالصومالي ده وح سي لو رجسي غير عادية أو أي كم متهاي يعني وحي دقالة لها وحي دول بيركها وحي دتك سيدي لوجو بيري ديجان كي دتك الصومالي ده ماله وسياسة قبو سياسة ده قبو واحد حلسينه إذا دتك كلي أجانب كا إنا يقاطان دول كي دتك الصومالي ده taa ayaa keenaysa in maartay gobolka City-na maadaama uu gobol maartay xoog leh oo meel istiraatijiya ku yaala marin fiican ku yaala ina ummadeedii marka loola yimaado wax aan macquul ahayn oo maartay laga dhaadhiciyo oo lix aqal oo weligeedba ku soormi jirtay maartay qolxad ku dhaatay amba dhagalay wax ku soormi jirtay oo waxa maartay sida fiican loo ilaaliyay xeerkuna uu meel saaray maartay sida maartay daryeel كاملة لو سمية أي كم تاي إن لجو صون نقده أو ريري قار أي جدين بربا مرتين أنا جاب فرصة برنا أي فرصدان أو ماشى سمارت أي كب بحضو دجلي دي الأورنجري
kabta guudkayga saar oo aan ku wada kala goosano midnimadeennuna sidaasay ku jirtaa la odhan jiray marka anigu kusoo noqon doono halkaas oo wax ka odhan doono hadalkana walaalkay uga baxaya waxaan anu leeyahay oon kusoo gunaanadaya ninkii waxaa ka shaqeeyey maanta isaga ayaa sii jeejeysanaya maanta oo arrimihii baa ku culus siyaasaddii baa ku culus waxa laga rabaa maanta inuu ciidan geeyo dhulkii maaragtay dagaaladu ka socdeen waxa laga rabaa inuu maaragtay dhaqaale geeyo soomaalidiina waa taa maaragtay guuxa ay bilowdeed arkaysiin marka waxaan u jeednaa inaan anagu noqono dad maaragtay ay tashanaya arrimahoogana garanaya caqligooguna shaqaynayo oon laba degmo oo maaragtay marka xooluhuna ay seexan ninka ku warwareegayay de waxaan u arkaa caqligaab laakiin waxaan kusoo noqon doonaa sida laga yeelay waxaan maxay ku habboon tahay waan kusoo noqonayaadana insha allah si wanaagsan mudane faarax cute bal arrinkan aan maanta na hor yaallaa iyaa ka mas-uula oo ahayd inuu yidhaahdo waar ka joogsada tan annagu ma ogoline qofka ugu horreed maanta aad tilmaami lahayd ayuu noqon lahaa yaxaa soo dhameeyey sucaaday arrinkan horena waan u sheegno wuxuu yahay dadkaas in laysku diro oo laga mashquuliyo wixii dhabta ahaay inay qabsadaan ay ahayd oo ah inay dhulkoogii difaacaan dhulka xoogga lagaga qabsaday iyo shirqoolka lagaga qabsaday inay soo ceshadaan ay abaabul samaystaan iyaa laga mashquulinaya waxaa leeyahay de ha ku mashquulaan qoladii dee warkan loo soo dhiibay de kuwa kaleeto ayay ula tagayaan meeshu waxa warka u horeeyay wuxuu ka imanayaa waa dowlado arad kiilo ka yimidaya meel kaloo ka shishaysa ka yimida arad kiilo markuu ka yimaado dee jigjigu tagaya jigjiga markuu tago dee diri dhaba maxay qabanaysaa marka diri dhaba maxay qabanaysaa maxay ilaalisaa diri dhaba qiimaha ay diri dhaba dadkan u leedahay maxay tahay majigigay lamid tahay majigigay lamid tahay wixii dadkaaga kala dilaya ninkii kursiga haysanaya kursilihii wuxuu soo qaadayaa wax dadkii dan u ahayn laakiin kursigiisa uu ku ilaasanayo oo ma diidi karo ninkii koofiyadda laa markaa maxaa la gudboon waxa la gudboon inuu diido waxa la gudboon inuu diido oo ninka kursilihii wax walbuu laaqaya ninka koofiyadda inuu eega maaha inuu diido weeye soomaalidana way ka dhex jirtaa dadka soomaalida way ka dhex jirtaa laakiin annaka nagama jirto warka arad kiilo ka soo baxay meeshuu doonaya kale ha ka yimaadee arad kiilo warka ka yimidday kolkuu jigjiga tago jigjiga markuu ka yimaado wuxuu tagayaa dirdhaba intuu shiniiliya tegan dhulkan shiniilo waxa maaha waa jigjigu lamid yahay shiniile laakiin dirdhaba inay hor joogsato weeye waxaas waanad fahmaysin dirdhaba markaan leeyahay cidda ku shaqada jiritaanka beesha ma aha cid kale maahina waa dirdhaba weeye qandaha iyo ogaaska weeye inay diidaan oo yidhaahdiin horta wixii saami qaybsiba hadduu yahay inay iyakaa ku shaqale saami qaybsiba wixii haddii la idhaahdo iyakaa ku shaqale halkana saami la qaybsadayba ma yaallo saami la qaybsaday halka ma yaallo laakiin saami qaybsiga dhulka kale ee lagu meelaha kaleete ee degan ee wax ay ka jiraan ee aan ahayn in dadka la isku diro la isku mashquuliyo aan ahayn inay ilaaliyaan weeyaan ahayn war saami qaybsigani dhab maaha tani sax maaha hala soxo dadka adigaa ka aabbaa taas waxaa ka aabbaa dirdhaba ka aabbaa tani bay noqotay tani waa tu dadkii ilmaha 5 jirkii ma qaadanaya 10 jir ma qaadan dhulkiisii ka maqan yahay oo leeyahay halkan baa ku dhisaya halkan qaybso arrin maxaa la qaybsanaya dhagax baa la qaybsanaya adigu xitaa ma saxdo uu yahay meeshan lagu sheegay degmooyinka kolka aqliga eg tani waa qoorsi weey waa qoorsiga uu qaadanaya ninka kursi doonku uu qaadanaya qoorsiga laakiin ninka koofiyadda inuu qoorsiga qaato maaha inay loo qaadan maaha ninka koofiyadlaydu inay qaadaan maaha qandhihii ogaasku inay loo qaadaan maaha oy dadka wax walba ay u qaadaan oy waxaan soconayn u qaadaan inay diidaan weeyaan dadka waxaan gormay diidayaan lama garan karo si wanaagsan halkaasaan jeclayn inaan abaarno oo ahayd ciddii diidi lahayd waayo arad kiilo waxa lagaga soo maleego ee jigjiga imanaya oo jigjigana ay ku kacayso mar walba aan ognahay anagu laakiin meeshii diidi lahayd mar walba waa saad u abaartay oo sax ah inay noqoto dirdhaba weeye dirdhaba cidda laga hadlaya way is og tahay arrin saami qaybsiya iyo arrin ku saabsan beeshaas kuwa ayayna xalilaan weeyaan mudane yaxya aadan haddaan u soo laamo
waxaad jeclayd in aad sii wadatid hadalkaaga kadibna saami qaybsiga inaad ka sii rahdashid waan kuu sii daayay waa sidaa weeye socodey saami qaybsi kolka la idhaahdo waa dhegeley weey waa dhegeley xeerka ku jirta oo dhowrtay xuquuqdii reerku lahaa nin kastaba meel ba dhigta reer ka sareeyina ma jiro reer ka awood badan ma jirto reer ka badan badi wax ku qaatina ma jirto بريهم دم أو لقى صوب لو تطبيق الوطن كي وحابة كدعي دول كيني أم بحير كي أو ما رتي الدبعي أو دبرك اللي جبيه وحنا هو عن نيكا كرسي جعيل كلا وشيء يفارع عته أو يسوون الدنا جار عليه أو يمدنا الدبعيني سامي قيب سيجاني كوكا لقى هالله وشيء قرها هاتي كوكا لقى صورب دولك وجاسك حيرك شيء لا أفراد بالنقطة si qurux badan loo yagleelay ee la yiri Ciise waa wada Ciise nin caaram dheer waa dimuqraadiyad badax tiran 1400 iyo kontomaadkii baa la dhigay intaas uu jira arrinka isaga haduu yimaado maxaa loo baahan yahay dhalinyaradan maanta imanka dhuka gacanta ku hays magaca reerkana sheeganaysa Ciise waxaan u maleeyaa inay dhowr xaalo ay ku dhex jiraan horta inay abood كسريسي أي واحد دكتينيسو أي فرطة وقفي قيسو لبا إني هندنا نيجعيل كو أي يجو جعيل جهين إني هندنا وحسينا يعني يد مدة صدح نين عندك جرينين وحير كسيد الله قيبي أنا جرينين وحير كين وحبك جرينين إنه ماشي جوجنا وكار كيس سيدا درتيد وحن لين هاي الرما عين كانوا كلا سامي قيبس كوكا لقى حلو حير كسيدو يقول دقي dadka garanay in la doonto oo aqalka ogaaska ayaa ugu horeey odayaal baa jira dad jooga ina halka la geeyo waa sida yahay jirtina oo marka maartay la qaybiyo aqal loo qaybiyo lixda aqal ay ku duceeyaan curadka iyo ogaaskana loo saaray cadkoogii saddexda ka afarta kalena waxay qaataan wixii uu soo haray oo cadaalad ah yaa la qaataa marka arinta waxa loo deynayaa xeer sidii uu dhigay يعني فعدلوا ولو كان على أنفسكم وتاه عدالة الله شيء هدي عدالة اللي هلو ومدة توسيس وحتوسية أو النقامات كتوسي وجاز كتوسي سياسي كتوسي بلشة كتوسي لكن هدي اللي سكور وريجة أونو دي قد كان الله عسيستو بوكارات ما تحقلوا عن اللقاتو ونكستيل ماشي كهلايو وحوجا يرد نكدو أو سليدة أدو تجايو ومركا مارتي أفر عيالنا قادنايو oo anigana wixii badi oo buri keer kalena maartay cadaadka aan kaga talowna haday jirto arrinkaas iyadu ma dhacayso saami qaybsiga oo kala garaado waa inuu ciisuhu gartaa inuu leeyahay xeer waxaan qeexay oo ninna wixiisa aanan la qaadanaynin hadii ay dhacdo su'aade oo la yiraahdo nin baa meesha ka maqan miya la qadinaya xeerku muxuu ka yeelay ninka maya ninka nin baa u dhow hadaba lixda reerka kan ka hadlay ninka u dhow baa loogu dhiibi war adu ka dhow kala xisaabtan baa la oran doonaa waa ka waan ku dhiibnay ina ka dhow toolo ninkan haduu u cuno de isaga adu kala xisaabtan baa la oran laakiin haduu ciise weyna ka cuno wax la oran doonaa war de adiga walaalka baan kugu dhiibnay u doona la yiraahdaa nin baan kugu dhiibnay anaga waxba nagu malihin meeshan waxba ka dhalanaya arrinka iyada ah saami qaybsiga hadii sideeda loo yegleeli waayo wax badan baa ciisaha dhaafi doona guul uu doonayana ma gaari doon taasi horta waa qodob weeyaan degmooyinka ka soo qaadba lagu goohaya maanta wiida lagu hayo degmooyinkan hadii dad aynay qaataan ah deyn iyo dhunyar baa iska yeelan kara labadooda loo deyn lixda aqalba way degaan lixda aqalba way ku dhan yihiin ha kala badnaadaan aba ha kala yaraadaan laakiin way wada degaan ina ayaga la yiraahdo inika ayaa de maartay dhibaato nagu dhacday dhulkiini baa laga sameeyay oo maartay dhibaatada maartay nagu soo dhacday dhulkiini baa qaatay inika niidaynay hadda reer kale ku jiraan yaa la soco ma aha reer ka maqan ma jirto Yonis Musaud daga Saad Musaud daga Holo uu daga Hawlo qaada uu daga Mama Saud cid aan degin ma jirto reerkii way wada degaan urweyna uu daga horona uu daga wardiq uu daga marka sida in hadana aqli loo dhiga bay haydo la yiraahdo war ragii halka ku soo baabay han u deyno oo aqligeena maanta inta iyagana ha uga dhigno dhiirigelin oo ayagu ha kala qaybtamaan lixdii aqalna ku qaybtamaan sidaas ay ahayd hadii lagu sii dhansiiyo maxaa dhacay handana
dee furfuritaankii baa la doonayaa dee inuu sii socdo inaa ummaddii soo daashay ee soo dhibibiday ee soo dhaawacantay ee soo baabaaday inaa haddana dhabarka laga sii jebiyaa la doonaya hadday qodobkaa labaad ay soo dhaafto qodobka saddexaad inaa halkii ay ka timidday lagu celiyo halkii ay ka timidday in lagu celiyo waa bahal uraysa oo uskag ah oo xamaasad leh inaa halkii lagu daayo oo la yidhaahdo war ma rabnay hayso halkii adhigu seexan waayey annagaa la de imikaba waan degana dhulkii iga maqnaana dee halkan baan kaga duuli waan doonan dhulkaygii cidna igama celinayso dhulkaygii ninka ku fikiraya inaan dhulkii ka hadhayana taa inuu caqligiisa gelin aniga ilmahayga iska daaya ilmihiisa ayaa dooni doona dhulka hadday taa soo dhaafto haddana celintii haddii lagu kari waayo ciise waa inaa 6 aqal oo aan magacaabitaan lahayn oo labadaa meelood ka jirto waa in loo dhiibo la dhaha inigu gacanta ku sii haya intuu ciise maaragtay ka fadhiisanayo ee uu meel iyo maamuus iyo dee dariiq loo maro loo yeelayo xeerku intaa haddii uu soo dhaafo arrinkaasi waa laf margi weeyaan lama qaadanayo waa la iska daynaya intaabaan inaan ku biiriyo dooni dhalinyarada maanta talinaysana waxaan leenahay inay sidaa xeerka u gartaan ciisuhu haddii uu wax qaybtamayo kab baa la soo qaadaa waxaabaa la dul dhigaa amba saan baa laga dhigaa saantaabaa la jeexjeexdaa tolan baa la yidhahdaa nin kastaba sidaa buu ku xasran la'yahay waan ka baxay su'aale si wanaagsan jazakallah khayr mudane faarax cute waxaan galaynaa haddii tole qaybtii labaad ee barnaamijkeena oo ahayd waqtigii uu yimiday la isxukumayay amaba se maxkamadda la saarayay wax weeyaan maxkamaddana dadka aan saarayna ayaan doonayna marka hore bal inaan ogaano ka horse waxaan jeclahay inaad bal isyar kor taagtid maalintii ugu dambeysay toddobaadkii hore aan ka hadlaynay waxaan idhahayd laba shayba carabku uu ka cuslaaday siyaasiyiinta reer city iyo dowlad deegaanka soomaalida iyo oday dhaqmeedka iyagaba weli lama maqlin iyaga oo ka hadlaya dadka inta ay yihiin la xasuuqay iyo dadkaasi dhulkaas inay iyagu leeyihiin laga qaatay yacni waxyaabaha ku kalifay inay ka hadli waayaan bal inaad isyar kor taagtid dadka inta og baan jeclaan lahaa ina dhulkan aan ayba lahaynba oo laga yacni ay iibiyeen iyo kuyo dhulkan haddii tole awa jirinba iyo inta aanan ogeyn inta kor u dhawaaqday iyo inta noo qarsoon intaasoo qodob baan yar jeclaan lahaa haddaad isyar kor taagtid mar mudane faarax cute ها waxa weyn horta arrinkeenu waxaad aragtiin dawladda Itoobiya markaan ka soo bilowno intaan ku weyn oo yimin dawladda Itoobiya markaan ahaw mudane faarax cute waxa la soo qoray Facebook in maanta maxaa ku dhacay Facebook ma socdaan u maleynaya kulli aba waxaan ka dareemay dadka tirada ay ku soo galayaan meesha marka waxaan u maleynayaa inuu YouTube-kuna ka daawanayaan dadku Facebook-na uu shidan yahay xaggayga ma garan karo wax yar iga raali ahaada go to live baan samaynaynaa wuu diidan yahay Okay. waxaan rajaynaynaa hadda inuu socdo ay maqlaysaa soo ma hadda ku maqlaynaa wuu diidan yahay caawa ma garan karo dhibaatada meesha ka socoto isla soco mudane faarax cute waxaan isku day bal inaad si uun okay su-aashu waxay ahayd maxay dadkeenu codka hoos ugu dhigayaan صح
arrinkaasi waxa weeye waa arrin raadkayga wuxuu tahay iyaka markaad ka bilowdid dadka lay xukumaan ayay maraysaa qolooyinka dambena deeqdan bay u reebayaan iyaku laakiin ma dareensano inay deeq reebayaan oo dadka soo socda generationada soo socda deeq reebayaan ay deeq u reebayaan ma dareensano haddii aad aragtid marka waxaad qaadataay oo qudhahaatay shirarkana lala galo dowladda dhexe ay la gasho gobolka Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowlad deegaanka Afarta waxa laga bilaabaa wada dhaqameedka yaa laga bilaabaa mar walba dadka la haysto waa dadkeena ee loo hanjabo ee la yiraahdo bashirkii u dambeeyay ee Naasireed ka dhacay ogaaskeena ayaa laga lahaa ogaas Mustafa adigu hadda dadka la hadasho way ku aqbalayaan haddaad la hadasho dadku way ku aqbalayaan dadka kontrabaaga leh ee kontrabandistiga ee kharbadaada wadi haddaad la hadasho way ku aqbalayaan dagaalka jooji baa laga lahaa ogaas waa nin la soo weerarayo isaga la soo weeraraya wasiirkii nabadgelyada lagu sheegay dalka Itoobiya ogaasku kale adigu waa joojin kartaa awood baad u leedahay inaad joojiso dagaalkan ogaaskeenu ma odhan warda sideen u jooji aniga la weerarayaa ma odhan kuwii dagaalkuna ma odhan way yar yihiin markay ag fadhiyaan dowladda dhexe iyo odaacaliga waa markay ag fadhiyaan way yar yihiin dad yar baa waxaad moodaa dad yar oo dad yani ciriiri ku jira iyaad u aragtaa sida runta ma aha oday dhaqankooda iyo ma aha keligood ma aha ilaa xitaa walaarba iyo markay Mustafa iyo isaga joogaan iyo kon kale maxay in Cusmaan markay ag joogaan waxaad moodaa wax diloon baad moodaayo bahdilan inay diidaan bay taas taa inay diidaan bay waxyaaba aniga iga yaabi waxa kamid ah in ogaaskeena laga yiraahdo jooji dagaalka aad joojin kartaa way ku aqbalayaan dadkaagu waa in la soo weerarayaan leeyahay dadkiisa aad dagaalka jooji isaga la weeraraya dema oran demo ana la weeraraya maxaa joojiya ma oran isaguna oo ku yaaflagaadinaya meesha shirka dushiisa Afarta ku yaaflagaadinaysa waxa weeye laakiin marka annaka nala joogo ogaas uu sheegaa wuxuu dhahaa war nimanka markaan la shirayno waxay la sheegtaan dhulka kale ba sheegtaan halkaan maahina buu dhahdaa okay dhulka kale ba sheegtaan waxa loo baahan yahay wuxuu yahay dowladda Itoobiya kolkay hadlayso waxay tiraahdaa dagaalkani Afar iyo Ciise weyn Soomaali maaha dowlad deegaanka nin walba oo ka hadlay hadduu siyaasi yahay hadduu oday dhaqan yahay hadduu yahay mid kaleba Soomaalida kale waxay wadaagina waxaan gobolka dowlad deegaanku annaka ugu nabdoon dalka Itoobiya lama arko 400 oo kiiloomitir oo dherer dad laga barakiciyay lama arko magaalooyin la xasuuqay lama arko kolka dowlad deegaanka aan ka tirsannahay annagu waa kuweedii kama tirsanin baa ma arko inaan ka tirsannahay iyakii waxay sheegayaan dul nabad ay sheegayaan kuwa jigjiga annagu dad barakacayaan sheegaynaa dad dhimanaya dad dhintaa sheegaynaa dad la xasuuqaan sheegaynaa dad cidla jiifaan sheegaynaa laakiin iyagu ma sheegayaan dul nabad ay sheegayaan dhulka nabadda ay sheegayaan annagu dambiyaa ka tirsannahay waa in la ogaado halkaan ka tirsannahay waan ka baxay si wanaagsan kolley mudane Yaxye waxaan malaynaa ku yar dhacay bal waxaad qodobyada iigu jiray oo iskor taagan wali waxaa jirta arrinkan dhulkan la iibsaday doonayna dadka inaan maxkamadda ku saarno mudane Yaxye soo noqdaan jeclahay si wanaagsan niman qayb bayd hadda niman qayb si wanaagsan hadda wad maqlaysaa ma ha si fiican ha bal qaybtiisa kale aan ku weydiiyo su'aasha haddii uu markaa uu mudane Faarax Muta oo Faarax Cutowna uu arkay isaguna inuu kaga darsan karaa bal qaybta labaad waxa weeye dhulkan waa la iibsadaan la leeyahay
dadkii iibsadayna hore waan u soo maqalay oo waad ogeydeen kadibna waxaa la yidhi dhulkii la hoos geeyey ha laga soo cesho oo wuxuu ku hadlayay cagjar waad ogeydeen kadib dadkii waa la xasuuqay isagoo waxba u qabanin dadkii waa la barakiciyey haddana waxaa lagu jaahwareerinayaa 2 meelood oo kale in la dejiyo dhulkan ilaa iyo dad intee la eg baa og in la iibsaday inteebaa noo sheegaysa runta inteebaa weli qarsanaysa waxaan doonayaa inaan maadaama sanidhi haddii tolo waqtigii xisaabtan joognaa oo maxkamadda dadkan lasoo saaraya inaan ogaano dadkan annaga inaga midkaa inteebaa og inteebaase naga qaranaysa inteebaase wax noo sheegtay dhulkanse xaqiiqatan waraqadihii ma lahayaa lagu kala wareejista سعادي أرنت مارتي قلبيتك قبلك سيتي مارتي دينيا دونير ورتو أرن أدو قطدير وأرن يدور حال الله سعته تو سياسة ديسن تو حماسة ديسن أو نعيبة كجرتو يتو استراتيجية أو نقالة صدق ده حالتك اللي أديك سيدي مركا قبلك سيتي maaha iminkan amaadartay waxaan aan arkaynay oo wax ka sareeyay dawladihiis daba mariyay ilaa maartay mijisto ilaa wixii ka sii horeeyay dadkeena inay riixaan bay isku dayeen waxa uu saamixi lahayn abooda waqtiga ayuun baa u saamixi lahaa laakiin waxay isku dayi jireen hada jeer inay ummadeena maartay ay gumaadaan oo inay gumaadi jireen ay maartay dhulkana ka kaxeeyaan dhulkoogana ka qaataan siyaasadii maartay melis sanaawi kokay timiday waana ka soo sheekaynay isbedelkii lagu dhawaaqay waxa la socday laba xaalad la socotay mid garasho leh oo dhulka garanaysa iyo mid garaadaro leh oo dhulka aan garanay ta garashada waxay ahayd ninka degal dhulka isagoo horta uu garanaya laakiin ninka dhulka doonayay ee dhulka u socday isagoo garanay mid garaadarraduna waxay ahayd maartay garaad aanu lahayn arintaas wadadka maartay Djibouti arinta ka soo leedahay fuulay iyaguna maartay uu irkiyay iyaguna cadowgan maartay wax doonay dad baa u irkinay markaas su'aashadan imisa koka laga hadlo run ahaan siyaasiga maartay Ethiopia jooga in yar mooyaan intooda badan arintan way ogyihiin Soomaaliduna cid kastoo halkaas soo martay way ogtahay iyaduna oo de raggan maaragtay dawlad deegaanka nin kastaba waxa loo keenay ajandahayo inuu dhulka ku wareejiyo sidana u wareejiyo sidana xaaladda u wado waqtigan uu ku afjaro yahay marka wax legdan siyaasadeed maxamuud dirir geedan isaga magaalada dan la helay isaga deji de ma ogeyn ma oran karno wuu dejiyay isaga ka soo raray meesha la yiraahdo cambuur isagoo maartay ciisu yaalo meel la yiraahdo cambuur oo u dhow cambuula meesha tiraadiin oo u jirta meelaha 10 kilomitir magaalada Gawaani isaga ayaa halka yimiday isaga ayaa dagaal ciisi ku qaaday isaga ayaa maartay dhowr habeen ilaa 4 habeen buu seexday marka halka 50 nin baa ku dhiman daraarta dagaal baa ka dhacay asbaabtiisii bay ku soo guurtay wuu og yahay marka Abdi Jibril wuu ogaa intuu ka og yahay alla garan wuu ogaa isaguna oo magaalooyin buu bixiyay isaga laftarkiisu waxa kale oo kuwan maanta joogo oo dhan aadan farax baa Ibrahim Usman baa kuwii dhulka soo maray oo dhan baa waxa kale oo og in maadartay iyaguna ku dhex jirtay magaalada Diridaba oo iyaguna maartay siyaasiyiin kuwa hore ha ahaadaan iyo kuwa dambabe way og yihiin laakiin nin kastaba in buu ka og yahay arrinka isaga xisaabta maanta aan doonaynay de dhul ilano intan la eg oo anagu aan leenahay oo ku soo dhaqnayn oo odayaasha maanta 78 joogay ay ayagu ku dhasheen maanta hadii sida loo bixiyay si yaro dib yar ma waxan wax waqti dheer sidee u dhacday ma oranayno ragaaba u joogay laakiin sidee baan maartay raga anaguna dagaal ugu qaadnaa dacwad ugu qaadnaa way taala meesha marka ina nin kasto ciiso dambiile hadduu Djibouti joogo iyo hadduu Somaliland joogo iyo hadduu Ethiopia joogoba in loo dul qaato ma way dhaxalkii ciyaalku bixinaya dhaxalkii dadku bixinaya wuxuu isagu lahayn buu bixinaya oo ku takrifulaya oo kursi ku fadhiisanaya waliba inuu ku sii jiro doono jiritaan buu doonaya waliba
lama deemaartay lama kuma badbaadiyaan ina Djibouti aqalada weyn laga dhaxgalo oo la sameeyo sida Cabdi Xakiim iyo Miigiyo ay halka imika Djibouti ay haramusu fadhiyaan iyo maartay kuwan maartay Addis Ababa fadhiya dee waxay dadka ma badbaadinayso ayaku raggan dad bay ka soo jeedaan xisaabtoodana waa in la galo waa in la xisaabtamo ciisu sida wax loo xisaabtamo ma yaqaan ninka dambiilaha hadii wax laga qaban waayo oo la marin waayo martabadiisi haduu martabada wanaagsan uu mutaystana dee lama maamuso oo sharaf la siiyo oo wixii dadka ku leeyahay la siiyo hadii dambiile yahayna ummada laga qabto dambigiisa la tuso ani way ila haboontahay intee dhul la iibiyay Sucaadey inta ciise degan yahay dhan ba la iibiyay Sucaad Soomaaliland ba la iibiyay Ethiopia la iibiyay ha oo Ethiopia la iibiyay meel uu ciise degan yahay dhan waxa iibiyay siyaasadda guud ee adiga ku soo daba socotay ku soo abaarays waa gooni weey laakiin ninka maadratay lagu soo adeegsanayo ayaa nin adiga ka soo jeeda oo aqli gaab ah oo siyaasadiisu meel ay jirin haddana haduu dhulka iibiyo waa inuu badbaado helo qofka badbaada laga raba waa inuu badbaado u keeno ummadda waa inuu badbaadin karo waa inuu xal keeno maxaa ku badbaadiyo ummadeedu inuu yiraahdo inuu sida maadratay garigan ku soo horkacuno xasuuqa ka kiciya degmana no ma dhici karto waxaas marka waxaan anu aaminsanahay inta aan deganahayba ina dhulkeena maartay fariheena oo maanta ku jirin baan anu aaminsanahay laakiinse waxa inoo furan ilbaab ah inaan maartay alaabta qaadano oo dhulkeena maartay ku faraadkaano leexjecla yeelano leexjecladuna waxa weeye waa labo wax adigu aad leedahay iyo wax ummadu kula leedahay oo aan teereejinay qaar leedahay si wanaagsan mahadsanid mudane Yaxye mudane Faarax Cute kulli Yaxye qaybo fara badan buu ka soo hadlay oo siyaasiyiintii ah intaas oo qof buu soo tilmaamay oo hadhow toolana su'aasheeda ugu dambaysa ay noqon doontaa maxkamad kuwa aad soo tilmaamtay dii lagu soo joojiyo maxaad ku xukumi lahayd maxaa soo weydiin lahayd adigu mudane Faarax Cute waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhinacay oday dhaqameedka siyaasiyiintu waxa ka soo sheekeeyay mudane Yaxye oday dhaqameedku ma og yihiin iyaga qudhigoogu dhulkan in la iibiyay oo warqadahoogi ma hayaan mise way arkeen bal waxaan doonaa dadkeena wax u bayaamino dad fara badan baa wax isku laaqaya in baa kule intani ma oga intan baa og in wax way isla wada og yihiin wana loo aamusayaan bal ku soco su'aashaas horta oday dhaqanka ciisaha mise oday dhaqamada guud ee sida maanta geeska Afrika oday dhaqamada Soomaalida oday dhaqanka Soomaaliyeed arrimaha beelahooga iyo ka gacanta ku haya ninkii wasiir ka dhigayaan iyo ka soo xula ninkii madaxweyne ka dhigayaan iyo ka soo xusha dibta oday dhaqankeenu uu ka baxsay wuxuu raacay xeerka burburka Soomaalida burburtaan la anaku meel burburtaan nahay ciise haddaan waan burburnay meel burburtaan nahay burburka kuwa hadda bilowda maaha waa burburkii xeerka weyn xeerka markii la burburiyo oday dhaqanka uu raac waxa lagu duulay oday dhaqanku ahaa waxa lagu socday xeerka loo baabiinay xeerka waxa hirgeliya ee gacanta ku haya waa oday dhaqanka xeerkii haddii la burburiyay oo uu ka bilaabmay saami qaybsigii u horeeyay kolkii duulaanka lagu qaaday markaasaa lagu qaaday duulaan xeerka ciisuhu halkaa wixii ka dambeeyay burburku mar waati naguma dhicin state by state wuxuu soo gelayay marxaladuu soo gelayay marxaladan u dambaysa oday dhaqankeennii inuu geed uuna ciyaarayn wixii ay ciyaari jireen raggii ka horreeyay baa yaa muuqata kolkaa ma odhan karno waxaan may ogo ma odhan karno waxaan may ogo ma odhan karno umanay howlgelin mid taa haddii mid ka daran baa jirta taa si loo soo noole dadku way burburaane horta inay la soo noolayn karo horta waa inay ogaadaan war horta muu burburay ciisahaada oo dhaqan u tiidi miyuu burburay mise waa ciise nool wallaahi way og yihiin inuu burburay ciise u burburay ku odhanayaan gebigoogaba markaa la sheekaysa sida lagu soo noolaynayaa ma galayaan hawshii lagu soo noolaynayo hawsha lagu soo noolaynayo ma galayaan oo maxay ah inay horta sinaan u helaan ciisaha dhexdiisa siyaasad baa jirtee inay sinaan ka helaan ciisaha dhexdiisa wixii ciise magaciisa ku soo dhaca inay ciisaha u sinaado kow taa ma samaynayaan
waxaa kaloo samaynayaan inay ninjeclaysi iyakuna leeyihiin ninjeclaysi way leeyihiin de ninjeclaysi hadday leelahayn raggana ka cabanayno waxbana ma qabteenba soo ma ogdina kuwana ka cabanayno ee ka ashkatoonayno ee dhibtay sameeyeen ay arkayeen waa ininka arkay siday usoo dhaweynayeen waa ininka arkay kolkaa raggaasi way ka maqan yihiin arrinkan ma odhan karno inay ka tooba keenaan xumaanta intaa leeg anagu xumaan baanu arkaynaa waayo waxa ay bixinayaan inay dhaqdhaqaaqayaan waa arkaynaa dhaqdhaqaaq way wadaan laakiin dhaqdhaqaaqoogu de waa mid laangara ah oo iskuma dheeli tirno iyaka waxaa looga fadhiyaa inay tahay badbaadada beesha nin siyaasi ma badbaadinaya in iyaku badbaadada beeshooda ay ilaaliyaan oo maxay ka ilaalinayaan iyaday kala ilaalinayaan horta beesha dhexdeeda cadaalad darrada ka dhacaysa ma waxaan saaraynaa dowlad deegaanka misolosida arag kilo baan saaraynaa maya ma saarayno waxaan saaraynaa dirna baan saaraynaa meel kalena ma saarayno kolkaa xeerkii jabuuti ka baaba'ay in dirnaba etoobiya dirnaba laga noolayaan doonaynaa dirnaba diyaar moota inay noolayso ilaan xeerka garaagiisu ma ahayn jabuuti dirnaba ahayde ilaaliyaha xeerku ma jooga jabuuti ma joogo wuxuu joogaa dirna buu joogaa caasimadda xeerku waa dirnaba wey waa halku ogaasku galo xeerka in la soo nooleeyo dee ogaasku waa inuu hawl galaa siduu hawsha ugu galo waa inuu haystaa rag la hawl galaa dee kuwan inay diyaar u yihiin inay xeerka soo nooleeyaan wey inay diyaar u yihiin badbaadada ciisena anigu waxay ila tahay waa xeerkoo soo noqda waayo ciise xeerku walaalku ah xeerku eeg dadkan waxa u dhisnaa nidaam dawli oo kale waxaad maqasheen dhulkan dowladaha ka jiraya dowlado badan baa ka jiraya horteen qarniga afrika iyo caalamka oo dhan dowlado awood badan baad maqasheen ku dhigateen taariikhaha ku barateen dowladahaas way burbureen ummado kale ka daba kacay oo dhulkoo iyuunbay dowladihii intay burbureen iyo dad kale ka daba dhisneen annaka xeerkeennu ciise wuxuu ka dhigay nidaam dawli ah markay dadku inay siman yihiin la keenay markay ciisuhu inuu siman yahay la keenay markay ciisuhu inuu wax kale lahayn la keenay markay ciisuhu inuu halowgaas leeyahay la keenay markay intaasoo dhan la keenay intanoo dhan markii la qaaday dee ciisuhu burburay nidaam dawli oo dastuuri ah oo xeer ah yaa jira xeerkii markuu burburay ummadiina way burburtay annagu waxaan sheegaynaa maanta dhul baana naga qaatay unbaan leenahay laakiin sababta keentay waa inaa hellaa sababta keentay waa inuu ciise isku gurman waayo waa inuu ciise isku gurman waayo oo cafaroo 3 gees ka imatay ay 6 jufoo ciise la hor joogaan oo garbaduub loogu xidhay 6 jufoo ciise dagaalka ku jirtay waa wax cajiiba weey markaan saa ka leenahay maaha inaan leenahay ciisuhu yacni waa dhabta dhacday weey dhabta arrinta dhacday weey waxaanay dee xeerka ku jirtaa iga dhowdii aawe ii dhiibtii aawe dhulka ciise ma kala wadii aawe waxaa laygu sheegay rag casbuli jooga dadkii u yimiday maxaa dhulka uga soo qaxdeen inay yidhaahdeen dhulkii inaad ka soo caamadeen inay ahayd man yaan maqlaayay oo lay sheegay qisooyin caynkaasaa dhaco xanuun badan oo ka xanuun badan ba wixii ka dhacay dhulka lagu waayey shuqolada lagu waayey arrinka caynkaasa maxaa xeer la-aantaa wacday xeer la-aanta ayaa keentay waxaas dhulkii ciise dhulka ma kale la yidhi ee ka saylac joogay inuu gurmado ahay arrinkani waxaad moodaa nin ragga aan ishaynaa mar hore uu yidhi waxaan sidan arrinkii baan moodnaa inaan taagannahay arrinkii yaan moodnaa inay taagan tahay inuu ninka casbuli jooga ka idhaa ninka ka yimid dalleel maxaa dhulka uga imateen waad soo baqateen dhulkii inaad ka imateen uu leeyahay isagoo halkan yaa kale halkaas waa ceeb weeyin ceebtaasi looga baxo looma baahno jigjigown in la haystee meeshay wax ka baaba'een waa dhexdeenna horta la saxaa loo baahan yahay waa ka baxay mahadsanid mudane faarax cote mudane yaxye mudane faarax cote wuxuu ka soo dhawaajiyey waxyaabo ka xanuun badanba inay jiraan waxaan la qaatay dhulkan la qaatay waa la soo celin karaa haddii la midoobo laakiin wax ka xanuun badan baa jiro oo waxaa burbura meeshan xeerkii ayaa meesha ka baxay taasoo ah ina oo
hadda la isleeyahay ba qofku markuu ka barakacay meeshiisu meel kale uu isagu leeyahay anaa leh markuu tegay la ileeyay dhulkaagii maxaad uga timiday oo dhulkii la kala yeeshay oo halkaas xeerkii ku baaba'ay ina oo la isku gurman waayo hore aanu naqaanay oo taasna ahayd in la isku gurmado xeerkiiba halkaana ku baaba'ay meeshan xeerku wada baaba'ay su'aalan doonay inaan dhigana inta aanan dhigin ka hor buu ka jawaabay mudane faaraxuto waxay ahayd arrinkan ah Soomaali baa baaba'da la leeyahay annaga ka beel baaba'ana uu leeyahay waxa keenay annagoo odhanaynay xeer baan leenahay oo waxaan Soomaali lahayn baan leenahay oo maanta haddii xitaa meel kalena laga weeraro ay wax ka baaba'aan waxa leena guri iyo 44 gando oo dadkaas yani noo jiro oo wax badbaadinaya ina maanta la yiraahdo meeshii wax ma jiraan horta waxay nagu tahay nasiib daro dhamaantiin ayaase maanta loo tagayaa oo la odhanayaa dadkan hal la badbaadiyo maadaama siyaasiyiintii ay sidaa yihiin ay kuwii xumaan noqdeen ee wax wada bixinayay ee dadka dhabar ka jabinayay ee gurigii looga talinayay reerkan iyo 44kii gande ee la doonayay oday dhaqameedkii oo dhanna ay ka aamusayn arrinkan kaanama shay-an lam yaxsal wax dhacayba inuunan ahayn oo kale yaa loo cabanaya marka yaa loo tegayaa dadku inay madaxooga iyo mijahooga kala gartaan baa fiican wax loo sheego mar uun ummadana daawanaysaa maalin walba tawahaan baa ku dhacay way garan laayeen meel u dhaqaaqaan bal halkee loo caranaya haddii toole marka labadii dhinacba waanu ka xunnahay haddii toole su'aaday waa su'aal fiican iyo aragti ina la cabira ah oo aad u fiican laakiin bal inta aan horta ka jawaabin arrintan meeshan casbuli la yiraahdo walaalkay ka dhawaajiyay waa arrin jirta weeyaan waa magaalada ugu horeysa ee maaragtay waa magaalada labaad baan odhan karaa waa magaalada labaad ee lagu soo qaxay weeyaan ragga ay weli sidii mas-uuliyiinta halka maamulka ka jira magaalada casbuli sidii loo baahnaa amba dad maaragtay qaxooti ah oo dhulkoogii ay ka yimid oo laga qaatay si u soo dhaweyn lahayn ilaa maanta sidaan kuugu lisay iguma lisintii baa taalo raggaas weli far baa ku godan waana laga afgodayaa waana laga cabanaya taa horta waa baaq waxaan leenahay si sax awriyaada ragga magaalada degan casbuli iyo shacabkeeduba inaad isi saxdiin wada daawanaysiin sida runta wada socotiin inaad isi saxdiin baan inaga rabaa waxaad isku saxaysiin laba shay waxa ka maqan raggan inay dad jajaban oo dadkan soo dhaweyn kara inay yihiin iyo dad hawshan ku dhacday dadkii ay la kaashan lahaayeen amba ayaguba maaragtay gunaanidii lahaa inay ahayn baa meesha ka soo baxda oo wararkaaba naga soo gaadhay taa intaa baan ku dhaafaya horta ma baabi'in oo eriga waan ka daba tagaya ma baabi'in laakiin waan dadabacnay oo xeerkeennii ayaa la dadabciyey laakiin hadduu sidan ku sii socdo baabi'ii baa ku xiga maanta xeerku uu isku suubanaa aad baa loo suubiyey ahayd loo adkeeyey ahayd laakiin dad baa maaragtay dadabciyey oo ka saarsaaray sidii maaragtay uu ahaa ayaa laga dadabciyey sidee loo adkaynayaa waxaa lagu adkaynayaa dhowr xaalo waaqalka ogaaska oo la adkeeyo oo halka ay maaragtay gudoloodu ka soo galayso oo dhan laga jufeeyo weeyaan sidii imanka ay shacay lagu yidhina waxa la yidhi bay ahayd inaan 12 oday oo reer kastiba isagu uu keenta baa la yidhi bay taa lagu day horta la soo kaxay ogaaska loo keeno laba waa ina dhalinyaro ogaaska da'diisa la keeno oo la korta oo isaguna ma dartay kolkay raggan meesha ka baxaan iminka isaga la talin doonay odayaasha inay isaga ku la wareegaan ogaaska ay noqdaan odayaashii ku dhunto la talinay oo waliba dhisan xaqii maaragtay waxbarashadiina dhisan xaqii maaragtay dhaqankiina dhisan waxa kale oo meesha taala ina ummadan loo qabto shirar joogto ah oo ka hadlaya shirar dhaqameed dadkeenu ma shiraan sida ma ogta horta dadkana shir ma qabsan karaan maxaa shirka u diido su'aalaan isweydiiyaan ugu dhalinyaro fadhiisanayso meel haddaan anagu xaafadda amba maaragtay magaalada shir baan maanta qabsanay ganacsiga ku saabsan shir maaragtay dhalinyarada shir mukhadaraadka shir maaragtay wax ayaga oo ka hadlaya amba shir xeerarka iyo dhaqameedka weli ma aragna dhalinyarada shirar been oo la yiraahdo waxa lagu qaataa abal baa lagu qaataa la yiraahdo ayaa loo keenayo kokay maanta ka qayb galaan 100 bir baa la siiya waa yaana waxyaalaha dadka laga qaaday Ethiopia dhamma waxa taqaan seminaar la yiraahdaa waa loo yeerayaa
meel kasta looga yeedhi qalin iyo buug baa loo dhiibi waa hada faa'iido darro ugu darnayd weeyaan waa lala wareegayaa maalin kastay tagaana waxa la siinaya 7 cisho hadday socoto 700 bir baa la siinaya waa dhulkiisi wax la iibsanay ma garanayaan taana marka dadkan waa inay odayaashana u yeedhi karaan haweenka loo yeedhi karo garbaha dhalinyarada loo yeedhi karo dhalinyarada raggu ay isku iman karaan ay fadhiisan karaan oo xeerkeedu muxuu dhigi karayaa maxuu badbaadada u noohay maxay tahay ummadda in laga rabo waxa laga rabo waxyaalaha weeyaan inay aqoon yahanadooda soo macsuumeen inay farshaxankooda iyo raggii maaragtay fanka ay u yeedhaan waxyaalo badan oo dadka ka maqan baa jira waxay u haystaan ina la shaqo tago xaafadda lagu soo hoydo bes khalaas arintu way dhamaatayba mayo bulshaa jirta wax la dhaho oo kobacda oona naaqusanta bulshadani way isnaaqustay iyadaa isnaaqustay waa sidaa darteed wuxuu xeerkun la dabdabcay oo maaragtay dabacsanaantu ay timiday marka waxaan leenahay inay shirar badan qabsadaan ay imika bilaabaan way haystaan ololay ku qabsadaan meelahay ku qabsadaan way haystaan waa inay thematic samaystaan waa inay yidhaahdeen maanta waxa baan ka hadlaynaa sicir bararkan ka hadlaynaa dhalinyarada maaragtay xagga dhinaca activity-kan ka hadlaynaa amba sportiga waxaan ka hadlaynaa dhaqanka waxaan ka hadlaynaa xeerka teemamkii dhannaay ummaddan lagu baraarujinayaba lamaba soo qaada su'aal dhibaatooyinkan haysta waa kuwa weeyaan marka dhaqanku u adkaanayaa xeerku u adkaanayaa dhulka lexjeclaa loo yeerani dhalinyaro wax diidan baa soo bixi dhulka markaa waa la difaaci karaa marka aan waxaan arkayaa dadka wax badan baa ka maqan halkaa baan ka dabacsanahay laakiin xeerkuna waa xeerkiisii dhulkuna waa dhulkiisii ogaaski iyo maaragtay gandayaashuna dee inaad dib loo reform wax lagu sameeyo ayay u baahan yihin si wanaagsan mudane faarax ta kolley dabayaaqada barnaamijka ku jirnaa haddii aan lagu odhan lahaa maanta intaa su-aasha sucaadi aad weydiid yaxye hal eray xagga xeerka anu eg ummad xeer ku taagan xeer markay ku taagan tahay xeerkii waan ku taagnayn ma dabcina waaban baabanaan dhulkan salka saarnaan leehay waxaan dhulka salka u saarnay qodobadii xeerka haddii la tixgelin waaye oo dadka qodobada isku xeer kan qodobuu isku hayay xeerka degelayaa isku hayay dadka degelayaashii haddii la tixgelin waaye waa tahay dhulkii xeerkuna waxay leeyihin xagga xidhiirka dhulka iyo xeerka ka dhaxay bal waxaa lagu leeyahay ciise dhulka ma kala leh xeerku kolka qodob muhiima ayuu xeerku kolka dhulka siinaya dhulkii la kala lahaan waayey ee la kala lahayn kama dhigno in la wada dego in la wada difaacana waxaa loo qaatay imika dhulkii makaaladii inaan anigu soconayo keligay aan iska tagayo aan tagayo aan candhuufo tagayo oon garbaciisa degayo oon kolka halkaa doona soo daaqo iska soo noqonayo maya haddii la soo weeraro garbaciisa inaad difaacdo weeye adigoo ka yimiday xariirad adigoo saylac ka tegay adigoo jabuuti ka tegay laakiin markii xeerkii uu burburay kii garbaciisa uu dhowaa ee 50 kilomitr u jira dagaalka ma tegin wuxuu noqday qodob baa dee baxay qodobkii dadka dhulka isku xidhayay ayaa baxay ninkii city deganaa ayaana dagaalka wada gelin 20% baa ciisaha dowladda isku tegeen oo indhaha ka xidhan oo jaamjaamiyeen oy waaleen ragga dhuyar iyo dayn degan raggaasi weerar dacwo doonaan ciise maalinta ciisu tanin laga baxo weerar dacwo doonaan dee qodobo badan oo walaalnimada qodobo badan oo mag lahaabaa baxay oo loo tixgelin waayey waa loo gurmo waayey cadow baa iskugu tegay waa loo gurmo waayey waa la daawanaya dhuyar iyo dayn dagaal baa ka socda dirna baa la qaylaya jabuuti baa la qaylaya calsuun baa la qaylaya dikhil baa la qaylaya cali saddex gees ka tegi dowlado kale la socdaan waan baabanay anigu ma aqoonsani inaan dhulkan ku furay waan baabanay dib loo nooleeyo ciise dib xurash u baahan yahay su'aashaada u gacad waxa weeye waa afkaarta kala gedisan waa sunne nin walba qof walba sibuu arkaa bal su'aashaydan aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa weeye waan soo tilmaamnay dhammaan odan dhaqameed hadday tahay iyo hadday tahay siyaasiyiin deegaanka soomaalida iyo resitiba haddiiba maanta lagu odhan lahaa dadkii intaan soo tilmaamnay maxaad weydiin lahayse haddii aad nafar u kala qaadaysidna adiga yani garan kara haddii aad dhammaan su-aasha wada weydiinaysidna waa okay
maxkamad haddaad soo joojin lahayd maanta adigu xaakimkaad noqon lahayd maxaad weydiin lahayse maxaase ku xukumi lahayd shareecadda islaamka yaa u raadin lahaa in dadka ay hor joogeen khaayimo waxa lagu xukumo khaayin waddan waxa lagu xukumo ummad la khaayime baa naanaku maaha ummad dhayl maaha arrinkaas dadkeena waa la khaayime sida runtaa waa la khaayime kolkaa kii maamulka ahaa ee khaayimaadda loo soo dhiibeen la khaayimay iyo inta loo ogba waa isku mid intaa baan kaga baxayaa marka shariicada islaam baad la tiigsan lahayd oo wixii halkaa ay ka tiraahdo iyaad ku xukumi lahayd bay ka dhiganta ajlik khaa'in okay mudane yaxye adigu haddii aad maanta xaakim noqon lahayd oo ay kusoo hor istaagi lahaayeen eedaysanayaashii maxaad ku xukumi lahayd maxaad se weydiin lahayd horta dhacdadan imaka dhacday waa dhacdo caalamkana ka dhacda waxaa la yidhahdaa maaragtay waa complicité de l'ennemi baa la yidhahdayo waa qof cadow kuusoo horkacay oo cadowgani khaayinnimada iyo lese complicitéguna way sii kala abood weyihin qofkani wuxuu kuu qariyey cadowgaagiibuu kuu qariyey laba shay buu kuugu qariyey dilna uu kuugu qariyey dhulkaagii uu iibiyena uu kuugu qariyey marka raggaasoo kale waxay tilmaamaysaa dee xeerka amba maaragtay diinta amba dhan kastaba marka la eego waxay tilmaamaysaa in lala tiigsado maxkamad haddii maxkamad la waayena sharciga ka jira dee waqtigaa dhulkeena ayaa lala tiigsanaya sharciga ciisuhuna wuxuu dhigayaa inaa xeerka horta 3 laga ilaaliya ayaa la sheegaaba 3 baa laga ilaaliya 3daa waxa weeye waa 3 qofood ee ummadda ku dhex jirta waa la yaqaanaa quraankuna uu tilmaamaa waa qof la yiraahdo isagu waa ildab waa masiibo ildab weeyaan oo waxa la wixii ha go'diga yiraahdo oo dhan isagu dadka isha isku qabanaya shirkay maba go'ayaba shirkay kuma go'ay war maxaan ugu dhex jiray bad ku hayni ildab baa jira meeshaas ildab waxay ka dhigantahay waa nin shirka kugu la dhex jira oo uleel moodaysid laakiin waxaagii oo dhan isagu fashilinay dibadda markuu baxo midna waa buusqaato waa qofkan korumbiga la yiraahdo fasaad korumbi weeyaan waxaan buu soo qaadanayaa ummadda uma aabayeelay isagana xeerka waa laga ilaaliya ka kalena waa caada qaate waa masiibo isaguna maartay dhul hadii loo dhiibo uu kala gadaya dadkii marka 3 nin ayuu maanta maartay ciisuhu mas'uuliyad u dhibtay uu ka dhigtay yaana maartay nin martamad leh nin maartay la daba joogo raggaas baa loo baahan maanta in dib loogu fiirsado su'aaday waa ka baxaan marka 3 xuquuqoodu muxuu noqon lahaa soo tilmaam ragga xukunkoogu waa ciisuhu xeer buu ku xukumi jiray siniba meesha ay maartay kala joogaan iyo sida ay kala yihiin iyo waxa ay sameeyaan dil baa lagu xukumi jiray qaarkood hadduu cadow la socdo dil bay ahayd oo ciisuhu dili jiray ninkiisa loo dili jiray oo laga takhalusi jiray haddii uu yahay maartay wax kale oo ka sokeeyana ninkiisa loo dili jiray waa qabaal oran jiray sidaas ahayd okay waxa weeyaan imika xukunkii islaamka oo mudane faarax xogta uu yidhi kaasaan ku xukumi lahaa iyo adigoo xeerka ciisaha u tiigsanaya waa labada fikradood oo macquul ah oo la qaadan karo waa dadka meeshay ka soo jeedaan markay dhaqan leeyihiin iyo xeer waa lagu xukumi karaa diinta islaamka wax walba ka horeysan waa lagu xukumi karaa labadiina waa macquul si wanaagsan idinkoo xukaam ah oo dadkii xukumay oo labada ku kala xukumay waxaan jeclaan lahaa باقا مدن يحيى كوريسي وايو waxaan ugu horeysiinayo maalintii dhaweyd ama toddobaadkii hore qaybtii labaad barnaamijkeenan wuxuu diray baaqaasi in looga soo jawaabay iyo hadii uu ku celin lahaa waayo baaqan wuxuu watay ahayd arin duqaade loomka iyo tireeheed warqadii ninka ka soo jeeda city loo dhiibay halkuu mariyay باق بهاد أذكر رادين يسي باقاسي وحوتها سؤال ربنا إن نلور راديو ونلور صوشة ماشي كده بيسي نكا ورقد اللور دي بي باق لبعض نوعها محا تذكر لوغو شيء جوايا عالم كا دباتو حيستو سيد اللوغو سوق جارو دبات جاجدان إيو عذرة كل دعي لبعض باق إذا دي بقول الرقطي باق صدق هذا اللي هذا هيسنا كدرتي أريكا ماشي كده بيان جعلان لها إن الأوجادو. horta waxa weeye su'aade dhibaato markay dhacdo
gurmad wax la dhada loo baahan yahay gurmadka haddana lagu kala noqdaa gurmad gudaha iyo gurmad guudka waxyaalaha imaka maaragtay dhacaya ee dadka imaka ka soo barakacay magaalooyinka ee meel baan la dejin oo roobkiina imaka joogsan doono oo dhulkii uu abaar noqon doono oo dadkaasi maaragtay meesha caska la dhaaday iyo sidaa isku daba joogaan weli booyada looma sameyn weli بركده لو مسمين ولي خيمادو اي غلان اي روبكا ka galaan bacdeeda loo masabay yaana sidii dejinahan laga reebay dadka loo noqdo horta waa ajiib waa imaka afartan cisho waxa ka sugaysa maalinkii dadka ay soo qaxeen marka sayida iyagu wax u wadaan wax u arkayaan taawaati gudaha weey raashin la qaaday wuu jiraa raashin loo geeyay way jirtaa laakiin dadka noloshii asaaska ahayd aaway haween bay dadku u badan yihiin garbuhu inay maaragtay meel loo sameeyo kiniifyo loo sameeyo ay dad imanka hawsha dhamayn karaan bay ahayd horta tiima jirto oo adiguba waan ku soo qaban karnaa dad xoog ogaal ah oo halkaana goob joogana waan ku soo qaban karnaa wad waraysan kartaa taasoo oo dadbeen ka kama sheegay kiniifna ma jiro booyadna ma jirto بركدنا ما جرتو لكن استلقي يدو يجان يعني تيب ودير ديان أو إنا لا سمي يعني معها وحكلوا ماشي تعالى ضدكم مركي دباتوين كنت مادو وحن ديك بكاوي ويان أدو أبود هذا ما قاعد كريسو ما أبودي كريس إنا دي عالم كلا تيكسدو أو ديتو بيجي جوجاني تينا ولا ديدية عالم كينا إن لوش شيء ولا ديدية هذا درات دلون تاعي يا هذا عشتير تاعي هذين زوجيني يو مارتي هايدي هاي واحد كوش كلام إمارات وحدت أولي المشي هجرته كرا روش ملاك وابد غير الأمير عصبي مركا حلو يا بدل يكون مارتي سيتي جوجان بديجان كجوجان ثاني يدنا إنا يدنا مارت سؤال لقدر ورقبها درات دلهم وحي كوس تعلقان وورقبين لبدية وورقبين لو دراء إن مارتي هايدان انترناشنال كا oo ah in la tiidsado maxkamad dadkeena dhib oo magacdoodii lagu qoro haday gobolka Canfar tahay haday gobolka maartay Soomaalida tahay haday gobolka maartay Amxaarka tahay haday ciidamada tahay wixii dadka gadoobka galo dhanba waa in la tiidsado warqada aweeyaan marka waan ka baxay su'aade si wanaagsan jazakallahu khayr en baaqagaas oo ka daba tagaynaa warqadaasaan anagu u baahanahay en meesha ay ku dambaysay waayo dadkii wax loo dhiibaa haduu luusanayo waa musiibo weey aad iyo aad baad maasantay jazakallahu khayr mudana faaracute kullay guux baan maqlayay bisawa geeraa bisawa gabay maxaa loo soo socda baaqaagu muxuu noqon doonaa maya taa ammaanada horta ciisuhu dhibaatooyinka weyn ee nagu dhacay waxaa ka xun ammaanad darrada waxay socotaba aaminaad darray keentay aaminaad darra hadday matana midnimo la'aan baa keenaysa muwaafaqo la'aan ammaanada ciisuhu ma xafidaan kii wax loo dhiibo waxa ma xafidayo ka ugu yar qaaraanka ururinaya ilaa ka ugu sarreeya ee dawladaha markaas ku mid bay noqonayaan dhibaatadu aad bay culus tahay linka wax loo dhiibay ee wax hagaaj leeyri ee wixii halka dhigay kolka aanu baaqaygo caawa waxa uu leeyahay ورادة أبقال يوضلوا العيسى قبيقيسى لدود لغا موايين حدو عافي ماديالي هلو قوري حدان ناي حدان عريف كسو جنو عشيش بان كدارتي دنكلي عدي مقاذني عليو عبارة أدو صباح بواعيني الشادي لقاربا وحبي عن كن غوتاي يا عصري قاني أنجوغان طليوني عبري أولاده أبيد بيجرين تاني يعيقاقي وطو عابهي مورين عيب تمان تاهي عفارو عصابيو كتميد عوسيو حبتا عدوغي أمحارنا وطو عدود كفانيسا عرورتيو هاوين قورعيو بوبي عيدني
ciisaha badhbaad ciisaha badhbaa cagaha gelin diriirtan waa ebe ciisaha badhbaa gelin cagahaba badhbaa gelin diriirtan waa ceeb yani waxaa cajiiba intaasaa la baaqay kusoo gebagabinaya gabaygaasina waa gabay aan intii soo horeysa nii soo qaaday insha allahu tacaala waxaan leeyahay cali sabiix iyo cali xagaa iyo carta iyo dikhil iyo caska maaru intii joogtahay war inaad gurmataan waad mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane faarax cutey jazaaka allahu khayr adigana sidoo kale waxa weeyaan waa maase aad iyo aad wanaagsan gabaygaasi aad buu noo cajabiyey ciisahana waxaa jira qaar baan weli cagta gelin iyo waa ceeb bal soo toosaan leenaho wax qabsada ciisow meel kastoo joogtaan dadkiina waa idiin baahayn insha allah baaqaygoona intaasuu noqon doonaa insha allah intaan ku kulmi doono barnaamijyo kala gegedisan oo noocyo kale ah insha allah maxkamadiina caawaad ka soo baxdeen insha allahna waxaan rajaynaynaa in aad sidaad u qaadeen ay u qaadaan dadka gacanta ku haya arrinkaas intaan ku kulmi doono barnaamijyo noocan oo kale insha allah waxaan idinkaga tegaya labadiinaba nabadgelyo iyo amaan allah asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dhammaan dadweynaha nagu xidhiidha waan ka xunnahay sida amaanta facebook u soconin idinkana inta youtube-ka nagala xidhiidhaysa iyo inta gadaal nagala xidhiidhi doonta facebook waxaan idin leenahay idinkana inta aan ku kulmi doono barnaamijyo noocan oo kale insha allah nabadgelyo iyo amaan allah maddakeedantii maahele niman dunyalayn madeego maddakeeyo dantii mahele daaliyo darxuma mooyi daymada lay diidiyey daaliyo darxuma mooyi daymada lay diidiyey daaliyo darxuma mooyi daymada lay diidiyey ku jiray daawadiisi daahirtaho nin daraano ku jiray daawadiisi daahirtaho aatudayo dabu marayo isdedaya baanahay aatudayo dabu marayo isdedaya baanahay aatudayo dabu marayo isdedaya baanahay